bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabi kusoo dhawaada channelkeena meel kastoo joogtiin iyo xiloo baydin tahay hadaad nagu cusubtahay please subscribe share like comment hadaad nolol joogtiin like share comment naga ilaawin insha allah waxaan samaysanaynaa maanta fish curry ama kalluun suugaan ka sameeyey oo lagu cuni doona insha allah bariis kalluunka dabka waxaan saaranaynaa saliidii aan kululeystay dabkii waxaan saartay kalluunka xawaaji yaraan ku daadiyey oo ah xawaaji dhudhuub iyo cusbo iyo filfil in yaraan ku daadiyey marka kalluunka waxaan sameynaya marka hore waan yar shiilayaa haduu ilaahay yiraahdo kabacdina waan ka saaraya haduu ilaahay yiraahdo saasaan sameynaya kalluunka waan shiilanaynaa marka u horeyso dabkaan saaranaynaa saxaabi hadda waxaan sameynaynaa kalluunkii waan yara shiilnay insha allah waan ka guraynaa baaquli ayaan ku guraya hadduu ilaa yiraahdo markaan ku guro baaquli hadhow baan dib ugu soo celin doonaa marka ayaan shiilayo khudaarta hadduu ilaa yiraahdo hadda saxaabiga kalluunka ka guray saliidiisii ma daadinayo basal ayaan soo shiitay iyo toon waxaan sameynayaa saliidii ayaan ku shiilanayaa kalluunka aan markii ku sameeyey basashii waan soo jajabiyey iyo toon marka waxaan ku shiilayaa saliidda cabaar marka cabaar ku shiila saliidda waan ku qalaynayaa waa inay isku baxda cabaar kabacdina alaabteena kale iyo xaggana ku disan doona insha allah cabaar baan qalaynayaa hadda waxaan ku darayaa tamaandho iyo basbaas halabino waan ku darayaa insha allah laakiin cabaar baan ku walaaqaya iyadana si ay ugu kulaxayso maadaama fish sameynayno ama kalluun waxaan ku daraynaa basbaas xoogaa aad uma kullo laakiin saas waan ku darsanaynaa cabaar khudaarteena way isku soo jabtay way isku burtay waxay noqotay waa diyaar in lagu daro xawaajiyaashii iyo alaabtii loo baahnaa lagu sameyn lahaa kale hadda waxaan ku darayaa xawaaji dhudhuub xawaaji kuskus xawaaji curry iyo waxaan kaloo ku darsaday paprika in yaro paprika iyo in yaro cusbo iyo waxaan ku daray cusbo iyo filfil haddana yaanya ku darsaday yaan shishiidan yaan shishiidan ku daray insha allah hadan ku walaaqaya
in yar oo filfil iyo cusbo ayaan ku daadinayaa hadda wax yar. biyo yar baan ku yar shubay oo ah wax yar ku walaaqayo. هذا صوص كيني أسمسني وحكو سو علنينا كلونكي أما ملايقي أما فيشكي دي بقو علنيا عبار بانكو ولاقيا دبكة. أصحابي هذا waxaan sameeyaa biyo ayaan ku darayaa koob biyo ayaan ku dadsaday waan ku walaaqay cabaar dan dabka cabaar waan saarayaa wad daboolayaa oo isku karayaa hal doonay cabaar inuu si fiican isku karo isku dhex galo khudaarta iyo kalluunka insha Allah markaas aad dabka saarayaa hadda cabaar baan dabka saarayaa oo saaranayaa hadda uu soo karay kalluunkeeni biyo kale aan ku daray kaga daray hadda waxaan ku sameeyaa yogurt baan ku darsanayaa 3 qaado waaweyn oo yogurt ah ayaan ku darayaa si ay u noqoto thick suugada. yogurt haysan caano garoor camal ku tusan kartaa yara adag. 3 qaado waaweyn oo waxaan ku tusaday qaadooyinka waaweyn ee tablespoon-ka ah ku walaaqayaa insha Allah bismillaahi kariim. صحابي فيش كاني ونصو ككري ساسو noogu soo dhamaaday intaasi waxa weeyaan suugadii taasoo noqotay fishkii dhama everything isku saaran yahay marka insha Allah bismillaahi kariim taasoo ku dhamaaday waa diyaar. waxa ku cunaynaa naka ku cunay bariis waxa rabta ku sabsan kartaa waxa ku cuni kartaa baalka waxa yiraahdaa canjeela ama ceesh ama waxa ku cuni kartaa bariis inta ku cuni kartaa waa basbaas yar leeyahay dhadhaan yar uu leeyahay malaayga ka dhamaayay ma sha Allah. malaayga waa sidiisii uu iska wax yar ka jabay waa sidiisii laakiin malaayga ma sha Allah. marka khayr baan rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Please subscribe, share, like, comment naga ilaawin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.